السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأي فرحة إن أسوق جارتي قيبتان حتى مقالك وحا كبردون تا روتر سويتش فايروول وحا أيهين هولها أي كلا قبتان سيدو إيجهين داو شوعان hagaag haddaba switchku waa aalad leh godad aad u fara badan loona isticmaalo in lagu mideeyo kombiyuutar fara badan si ay u wadaagaan xogo ayagoo isticmaalayo network switchku wuxuu ka dhigaa howlgab hub iyo bridge sidoo kale awoodda switchku leeyahay waxaa ka mid ah inuu xifdiyo MAC addresska kombiyuutarkaada waxaan filayaa MAC address inaan kusoo laabtay 1001 jeer MAC addressku waa tiro hexadecimal number ah tiradaasoo u suurtagelinaysa kombiyuutarkaada in laga dhex aqoonsado networka tirada hexadecimal ma ahan tiro isbabadasha ee waa tiro lagu soo design gareeyay kombiyuutarkaada khaasatan network interface kaarka switchku wuxuu u kala baxaa laba qayb oo muhiim ah mid waxaa la yiraahdaa managed switch midna waxaa la yiraahdaa unmanaged switch managed switchku wuxuu ku suurtagelinayaa in aad u sheegto amarada si uu u qabto hawsha aad ugu talagashay halka unmanagedka uu yahay mid diyaarsan aadan awood u lahayn inaad wax ku darto waxna ka jirto kaliya aad ku isticmaali karto sida uu yahay hagaag haddaba maxay tahay firewall waa aalad loogu talagalay in lagu difaaco network-gaada aaladda firewall-ka waxa awood u leedahay inaad u sheegto network-gaada wixii soo geli lahaa iyo wixii ka bixi lahaa sidoo kale firewall-ku wuxuu noqon karaa laba midkood inuu noqdo mid software ah ama inuu noqdo mid hardware ah midka software-ka ah adiga nafsad ahaantaada waa isticmaashaa laakiin kama warheedid kombiyuutarkaada wuxuu ku imaadaa firewall u qaas ah soomaadan arkin markii application aad ku shubto inuu ku dhaho u ogolow network-ga private ama public kaas waxa loo yaqaanaa firewall halka midka hardware-ka ay isticmaalaan shirkadaha waaweynka si ay u difaacaan network-gooda hagaag haddaba waxaan filayaa in badan inaad maqashay kalimadda router haddaba maxay tahay router muxuuna qabtaa router hagaag haddaba routerku waa aalad loogu talagalay inay isku xirto laba network oo kala duwan si ay iskugu diraan xogo tusaale hadda waxaad joogtaa gurigaada anna waxaan joogaa gurigayga waxaan soo diyaariyay muuqaalkan waxaan soo saaray serverkayga adigoo gurigaada joogo isticmaalaya network-gaada routerku wuxuu kuu suurtageliyey inaad isticmaasho ama aad daawato muuqaalkan hadda kaas waxaa loo yaqaanaa router si kale haddii router aan kugu sheego waa isku xidhaha laba network oo kala madax bannaan laba network markaa ku leeyahay network-gaada iyo network-kayga isku mid maahan midkaada wuxuu kuu leeyahay magac kuu qaasa anigana wuxuu leeyahay magac ii qaasa adiga waxaa leedahay wax loo yaqaanaa IP address kuu qaasa anigana waxaa leeyahay wax loo yaqaanaa IP address ii qaasa routerkana si uu fariimaheena u kala gudbiyo waxaa waajib ku ah inuu fahmo IP addresseska kala duwan haddaba IP address wuxuu yahay waxaan ku qaadan doonaa koorsadeena qaybaha soo socda insha Allah